مصطفى حاج إسماعيل هارون فليتفضل مشكورا مأجورا. سودو شيخنا. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحكت المامية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إن شاء الله درسي يقول لبضنا آيادات بكوري قدونا. آيات كان وحي كورميان قفك مسلم كاه ورب سبحانه وتعالى وتلماميه إنو فيريوها مسقر شايه مستقبل كيسا صوصادة. وحيث ويدين لقف هداتهاي قويس هداتهاي بلشاء يومد هدينون هاي متكستبها النقطة إنني سويدين ومدينو حاجة يوسعطه. المستقبل القريب والبعيد، مستقبل كينا دو إيا كينا دروكسان لبادو حاجة ينوصعنا، ما اتجاه صحيح ينوصعنا أم ننتظر المجهول؟ مسه وحن بين سجينا وحن مقان غيبك وحو النقضاء وإنه كملهن وح تخطيط أما وح قرشاء إنه كليني ما جرته حيث إنه لشدو أهدافته أما غاياتك إنه ربنا إنه تحقيقينه وصمينه قولسك أما هميلوينك إنه ربنا إنه قادنا محيه محيطهاي أهدافتنا ديري محل قياسا ما مقياس ذلك إنه هرو صعني إنه ندبو صعنا محينو كو قياسنا سيلو قيمينيا بلشاهان مركا إنه أغنو واحد مودا ودن كان يدد إنه فوضى بدن كتشيرو هدايتين على قويسك تقفك تبلشدا تدولد نمدا انتو باينو قرشوه كيريهاي. waxaynu markaa isweydiinaynaa dunida maanta la joogo sidee bay u suurtagal noqon karaysaa dad aan noloshaba qorshe ka lahayn inay u noolaadaan ama se u joogaan iyadoo dunida loogu noolyahay maanta sida loo kala xoog badan yahay. alquwa hiya alqiima alxaqiiqiya fi hadihi dunya alyawm. awood ama xoog ayaa maanta valuega kaliya ama qiimaha qura dunida tan ay eegto. haddaba su-aashu waxay tahay noloshaada maxaad ka dabacsantay? noloshaada soo socota maxaa kuu qorshaysan? ma inaad dhalato oo dhimato? ma inaad jaamacad ka baxdo oo waxbaratid oo guursatid oo lacag samaysid? ma intaasaa waxaad u nooshay mise qorshe kalaa jira? qoyskaaga maxaad u qorshaysay? dadkaaga iyo bulshadaada maxaad u qorshaysay? dunida aynu maanta ku nool lahay waliba علوم المستقبل وحلا يراهدا ما أنت عاد لو أديك سدا وحتى علماء قاركوت كتب تودا كتب الماميان وعلماء قاركوت كتب الماميان من فروض الكفاية يكون شيء جنبه. وإن دتكو استشرافا ما سووا دراسة مستقبل كصاص عدا يسقو كو إيجيه awoodiisa maanta uu hayo iyo taariikhdiisa tagtay iyo soo jireenkiisu wuxuu yahay iyo taaqada bulshadiisa iyo dadkiisu ay leeyihiin iyo waxa la tawaqucayo ama la filayo inay dhacaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamay bini aadamku mararka qaarkood mustaqbalka siduu u arko. ayawaddu axadukum an takuuna lahu jannatu min nakhiilin wa acnaabin tajri min taxtiha alanhaar له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت.
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إلهي السورة بوينو صوري sheegaysa midkiin miyuu jecel yahay isagoo beer iyo baraadhe iyo barwaaqo ku jira, beer isku baxday oo webiyaal hoos marayaan oo midhale oo wax walba, isna uu soo tamar gabayo uu gaboobay, dul yaryarna uu dhalay, caruur yaryar aan markaa waxba qabsan karin, dabeetana duufaan haleelo, icsaar uu haleelo ay gubato. qofkaasi suuradda baan laynoo sawirayaa, muxuu filayaa? mustaqbal madow buu arkayaa. isaga tamari kuma hadhin, kuwa korinaya waa yaryar yihiin, beertii waa gubatay. sawirkaasi siduu egyaa ilaahayna hordhigay subxaanahu wa tacaala. kadib baa ilaahay wuxuuna leeyahay kadalika yubayinu allahu lakum alaayaati lacallakum tatafakkaruun. sidaasoo kale baa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadka idinku caddaynaya لعلكم تتفكرون سيأو فكرتان وحضيموتان. أيها الأحبة، وحين لأن الدين تعالى ينسود سبحانه وتعالى وحي كصة ليسنتي على التخطيط للمستقبل ورفض العشوائية والفوضى. إن يدتكو إن بدن قرشيان نولشو تماداد إصاص عطا إن أنا باسكو لهين نولش قفكو مسلم كفوضى أنركي maamul la'aanta iyo iskadaba wareega iyo bariba waxay noqon doontaa siday maanta ahayd inaad u fakarto. haddaad u fiirsatana noloshii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qaabkaas bay u dhisnayd. mithaal waaxida haddaynu tilmaamno hijradii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam, culamaa siira markay hijrada inoo akhrinayaan imisun bay inoo sheegaan qorshe uu nebigu degay oo ah balaankii uu ku talagalay markuu hijroodo meeshuu mari lahaa, siduu cadowga uga dhuuman lahaa, siduu u raad gadan lahaa, wadadu qaadi lahaa, ciday tay cidda hogaaminaysa, cid aan laga shakinin inuu daliil ka dhigto, raaxilaadkay fuuli lahaayeen inay diyaarsadaan, wakhti aan la filaynin inay baxaan, meel aan la rajaynin inay qabtaan, inay u kacaan, buraley inay maraan si ay u raad gataan. yacni markaad daraasaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam hijradiisii waxay kuu tilmaamaysaa in layna barayo tashriic, iyadoo taasi ay cagsi u tahay maalan israagii alisraa walmicraaj. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam alisraa walmicraaj wuxuu ahaa tashriif iyo tacdiim iyo tasliya, weynayn ilaahay uu nebiga weynaynayey, la samirsiinayey, balaayiin kilomitr isu dhul ah bal aan kilomitirba lagu qiyaasi karin ayaa nabi maxamed ilaahay ka kaxeeyey maka oo geeyey bayt almaqdis oo laga dheelmiyo cirka la qabadsiiyey oo la soo celiyey. maaha masalo loogu talagalay inaynu kaga dayanno ama awoodeenna kuma saabsana, laakiin 500 kilomitir in ka yar isagoo soconaya oo maka iyo madiina inta u dhaxaysa waa less than 500 kilometers. 500 kilomitir bay ka yartay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiga waxaa lagu ilhaamiyey khitadii uu halkaa ku gaadhi lahaa iyo inta ay qaadatay iyo muddo 14 cashaa in la lugeynayey oo waxaasoo dhiba laga marayay. taas baa takhdiidkeeda lay. tani waa litashriic, tii hore litashriif bay ahayd, israaga iyo micraajkiiyo kuwa kane. ama tani waa litashriic. walidalik baa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu dareemaynaa qorshihiisa uu degayey sida uu ahaayee waxyiguna hagayey, xataa caalamka iyo waxa ka socda sida ula socdeen, oo labadii dowladood ee waaweynaa iyo dagaalkii ka dhex socday ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka ugaga warramayo, iyo ogaalka uu nebigu ogaa calayhi salaatu wasalaam xataa saxaabadiisa markuu rabay inuu u diro ardi alxabasha, inuu dareemaya amase warkaa uu hayay ayna xaggani ka cadaalad badantay labadan dowladood iyo intaan agagaarka joogto oo dhan, dowladdaasi ka tirsan dhulka xabashidu inay ka cadaalad badantay. waxaasoo dhamme waa wax tilmaamaya inaanay muslimiintii hore dad ghaafiliina ahayn, ama dad iska socda, ama dad uun suga mustaqbalku waxa uu noqonayo. bale axaadiista qaarkood baa waxay inoo tilmaamayaan
waxyaabaha wax lagu qiimeeyo markaad mustaqbalka qorshe loo degayo ugu weyn waxa ka mid ah al-ihsaa'iyaat statistics data in la helo tira koobiyo awoodaada xoogaaga tiradaada dhaqaalahaaga waayo waxaasaad ku qorsheynaysaa inaad mustaqbalka wax kaga qabato ilaa xaduu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixayn ku yaala riwaayada muslim axsu liya kam yalfadu lislaam iisoo tira kooba bal inta qof muslima joogta magaalada madiina ama riwaayada imaam albukhaari uktubuu lii man talafada bilislaami min annaas dadka inta ku dhawaaqday islaam iisoo qora uu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxay leenahay markaa laa budda min takhtiit laa budda qorshayn inaynu helno laa bud si ay nolosheennu fawdada uga baxdo siiba ummadda soomaaliyeed oo ah ummad aanay inta badan tirada ugu jirin saadaalinta mustaqbalka iyo waxay sugayaan إلهي وحين لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وركوا إيمانك لها ليو اتقوا الله لك عبصدا ولتنظر نفس ما قدمت لغد بري وحينا في أردقتي وحي أهرو مرستي وحي أردتيستي سودت هذا ما تغانين عنها ولا دتي دسي بري الله والغسي تلقى على بري si loo luli karo inay maanta dhitan noqoto waxa la leeyahay waxaad u dhitaysatay baraad lulane waxaad lulanaysaa waxay noqonayaan fiiri wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad adaba uga warramay maayo mawduuca kan sida idaariyiintu uga warramaan culamaa idaara iyo qaabka uga warrami maayo laakiin waxaan uga warramayaa inaan tanbiihiyo bas iyo waxyaabaha asalka aynu u baahanay inaynu isticmaalno ugu horeyn ilaahay wuxuu ku baraarujiyo inuu bilaabay ya ayuha alladina aamanu taqullah markaas hadana la yiri wattaqullaha inna allaha khabiirun bima ta'malu wal tanzur nafsun amarka labada hareeroodba waxa ka xiga alla ka cabsi baa layna faray macnaheedu waxa weeyaan khitadkeena iyo waxaynu mustaqbalka qorsheynayno dhami waynaanu marnaba noqonin wax ilaahay tiisa khilaafsan waynaynu cala alhuda inagoo ilaahay ka cabsanayna waayo cid kasta oo khutad degta calaa gayri huda allah lam walan yuflixu ma guulaysanayaan maxaynu u leenahay markaynu qorshe degayno alla ka cabsigu kowha ka noqdo ugu horeyn qur-aanka ilaahay wuxuu inoo tilmaamay inay nolosha fududaanayso bini aadamkuna waxa uu jecel yahay uu rajaynaya waa inay wax u fududaadaan xataa hadduu qabanayo inuu si fudud u qabto waman yattaqi illaha yajcal lahu min amrihi yusran baa ilaah yidhi ciddii ilaahay ka cabsata arrinka alle waa u fudaydinaya waxaynu rabnaa khudada u degaynoo dhammi waa nolosha inaynu si fudud u noolaan karno ilaahayna wuxuu inoo ballan qaaday ciddii ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa iyo ka dhowrsata naartiisa in alle dadka u fudaydinayo waxaa markaa qorshe la degaya lagu talagalaa riskiska jira waxaad adigu rabto qura lagama hadle waxaa laga hadlaa maxaa dhib kugu xeeran maxaa kaa hor iman kara maxaa dhici kara maxaa isbeddel iman kara maxaa caqabad kugu noqon kara qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa alla ka cabsigu inuu masaa'ilkaana makhraju yahay riskiga ama caqabaadka kaa hor imanaya qaabka loo daweeya inay ka mid tahay waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib ciddii alle ka dhowrsata in alle subxaana wa tacaala problemska iyo mashaakilka makhraj uga samaynayo way out meeluu ka baxo inuu helayo qorshuhu wuxuu u baahan yahay in ilaahay subxaana wa tacaala ku hanuuniyo samaha kugu hanuuniyo ama aqoon waxaa qur-aanka ilaahay inoogu tilmaamaya wattaquu llaha wayucallimukum allah wallahu bikulli shayin caliim saa ogeed ayuha alaxiba waxaa layna barayaa inuu qorshaheenna ka horeeyo alla ka cabsigu dadka maanta in badan oo ka mida dadka ummadda qorshaha u degta 5 sane soo socda maxaa la qaban 10 sane soo socda maxaa la qaban
labaatanka sane soo socda maxaa la yeeli waxaynu u badannay inaan masaa'ilkan inooguba jirin tirada inaanay ku jirin dhaatada aynu soo urursanay aynu rabno inaynu wax ku baysgarayno ama ku dhisno haddii alla ka cabsigu uu horeeyo waxaad helaysaa basiira aad ku kala aragto mustaqbalka dheer in ilaahay subxaana wa tacaala toojka ku wiifiyo sida ogeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana ilaahay haddaad ka dhowrsataan oo la ka cabsigu uu yahay main pointkiina ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idin yeelayaa furqaan bayna alxaqi waalbaatil waxaa xaq iyo baatil ku kala socdaan ama waxaa ku kala socdaan sawaabka iyo maxay iyo khata'a ama waxaa ku kala socdaan sharka iyo khayrka baa helaysaan baa rabbi tilmaamaya subxaana wa tacaala waxaan ku gabagabaynayaa mas'alada tan waxaad helaysaa ilaahay kaalmadii wattaquu llaha waaclamuu ana allaha maca almuttaqiin ilaahay kaalmadiiyo inuu ku waafajiyo sida sawaabku ku jiro idan koo waxaan leenahay ilaahay wuxuu ina yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waltandur nafsun maa qadamat ligad alle cabsidii baa layna faray marka hore kadib baa layna yidhi khudadiinana degsada eega berri waxaa u horumarsanaysaan qodobka labaad aan tilmaamayaa wuxuu yahay khudadka dadka muslimiinta ay degayaan hadduu qof yahay iyo hadduu ka badan yahayba waa inuu noqdaa maxay bacd allahi subxaanah wa tacaala alictimaadu cala nafs laa cala alghayr laa cala alaakhar caalamka maanta rag baa waxay go-aansadeen inay iyagoo awsiya u noqdaan inay yihiin uun haddaan iyagu ku gardaadin inaad horu maraynin waxna kama jiraan dowladaha yaryar iyo dadka masaakiinta iyo caynkani waxay in badan eegaan almujtamaci duwali muxuu inaga qabaa dowladaha waaweyne siday qorshaheenna u arkayaan ilaahay wuxuu inala tilmaamayaa alla ka cabso oo qorsheeya nebiguna wuxuu leeyahy ixris calaa maa yanfacuk wastacin billaahi walaa tacjis ku dadaal waxa ku anfacaya fi dunya walaakhira ilaahayna kaalmayso oo rabbi ha noqdo cidaad ku tiirsanaysaa hana caajisin ay laa tactamid cala alasbaab watagfil can rabbik walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu kuwaa ha u weecanina dhankooda markaynu masaladan ka hadlayno ugu horreyn waa inaynu garannaa meel firaaqa ama deganin caalam iska bannaan oo adiga qorshaha ku soconaya waxaad qorshaysaa ma deganin waxaynu degannahay duni masaalixda iyo ahdaaftu ay mutadaarib tahay duni iska soo wada horjeeda oo nin waliba maslaxadiisa iyo dantiisa ilaashanayo waxaynu joognaa meel si loo gaadho cid waliba maslaxadeeda iyo hadafkeeda awooddeedoo dhan ay isticmaasho waxay dhahdaan kuwa xoogga badan leh ee maanta dunida qaybta badan waxay u arkayaan horumarkoodu inuu ku xidhan yahay dib u dhaca ummadaha saddexaad siiba ummadda muslimka saa daraaddeed qorshahooda waxaa ka mid a inaad adigu weligaa horumarin baa qorshahooda ka mid ah walidaalik ayaa hay-aadkooda dhabta ahi waxay fuliyaan waxaa ka mid a waxaa la yidhaha siyaasatu takhriib subversion in la qaso ummadaha inta kale idan waxaan leenahay meel baynu fadhinaa aynu rabno inaynu horumar samayno ama ummad noqonno ama dad noqonno ama dowlad noqonno laakiin waxaa kugu xeeran cid aan ogolayn inaad waxaasi samayso subversionku almukhaabaraat alcaalamiya waa waxa ugu badanee loo dhigo saa ummad loo hagardaameeyo saa dad loo dumiyo waxay yidhahdaan ummad kastoo 3 shay loo sameeyaa horumar ka dheer waa halkeeday nagaanaysaa 3 shay waa maxay waxay yidhahdaan ixbaad demoralization in dadka lagu qanciyo
inaanay hore u socon karaynin in lagu yidhaahdo adiga imkaaniyaadkaaga iyo awooddaada iyo tamartaadu ma saamaxayso waxaasi adigu waxaad u baahantahay bay ku leeyihin capacity building soomaaliya imka 30 sannadood waxaa lagu waday maxay capacity building waa ma awoodaane waa laydin dhisayaa awooddiina la dhisayaa kuwa dowladda yar haysta iqtisaadiyaadkooda waxa ugu badan ee lagu tawjiihiyaa waa iqtisaad siyaaxa waa dhaqaalaha ku salaysan bay yidhaahdaan maxaa la yidhahaa tourism siyaaxa waddankiina meel loo soo taga ka dhiga xayawaankiina ha dilina kan ha samey iyagu intoodii way mariyeen maxay iyagu u dayn waayeen siyaaxadu waxay yidhahdaan in economics marka la joogo waa qaybta ugu horeysa ee dhaqaala burburka uu ku dhaco bini aadamka marka dhaqaala burbur bilaabmo bal wadanadan islaamiga u fiirso qoloba waliba waxay leedahay raxanta dayuurada ee dunida ugu badan iyagoo qoobada yaryara ayaa qolo waliba waxay leedahay raxanta dayuurada ee dunida ugu badan qolo waliba waxay doonaysaa inay siyaaxa ka shaqayso waa dhaqaala burbur sidiisa u yaala dunida waxay yidhahdaan ma horu maro ummadaan industrial noqonin ee casrigaynu noolay waxay yidhahdaan marka ixbaadku waxa weeyaan in adiga demoralization lagu sameeyo in lagaa dhaadhiciyo inaanad wax qabsan karin inaad dambayso inaad ku qanacdo kaalmadiisa mooyaane inaad adigu hore u socon karin ka labaad waxay yidhaahdaan weliba waxaa laga yaabaa inaad istidhaahdaan miyaa la maagaya maya dowladaha waaweyne waxay u leeyihiin gruub dhaqaalayahanaa oo masalada ka fakara oo wadannada kale tala bixinta siiyaa sidii loo dumin lahaa waa gruub dhisan maaha wax theory-a waa gruub dhisan waa kuwa ka warramayo kale convention of economic hitman ninkii qorayoo kale oo ka mid aha gruubada tan bale waxaan idiin sheegi karaa gruubada qaarkood in xataa rag soomaaliyeed ku jiraan dhaqaalayahano soomaaliyeed inay ka mid yihiin markaynu taa soo dhaafno waxaa garan kartaan waxay ku sameeyeen asia iyo numuur sabca dowladii lalahaa waa tigerska ama shabeellada 7 ah hal dowladaba tala bixintoodii diiday iyadoo qura badbaaday intii taladoodii aqbashay waa la waayay Malaysia qura diiday tala bixintii Australia bixinayay way guuleysatay mushkiladda way ka baxday lixdii qaatayna way jabeen shayga labaad ay sameeyaan ee subversion ka ahi waxay yidhahdaan waa zaczacatu istiqraar destabilization in waddanku crisisku uu ka jiro had iyo goor inaanu degin dadka badh baa u haysto moodaya dowladaha waaweynay inaynu degno inay rabaan in dagaalku inaga dhammaado inay rabaan in caynkan ma jirto waxay u socdaan inaad weligaa degin dee innaga waddankeenna waxaa lagu maamulaa maxay albandi saabic bandiga 7 ee United Nationska xeerkiisa ah bandu saabic macnihiisu waa maxay waa qofku isma maamuli kare hal la maamulo qofku isma maamuli kare ilma yara caruurta aabihii markuu dhinto maxaa la yidhaahdaa xoolihiisa ma maamulan kare wuxuu u baahan yahay maxay wasiy cid maamusha oo meel gaadhsiisa bandiga kani wuxuu qorayaa waa intaa askar ma yeelan karaan oo istilayaan qoriya ayaan laga iibinin dowladnimada xeebtooda ma ilaashan karaan cid kale ha way ilaaliso wax kasta soo qabo waxa ma samayn kartid ilaa iyo ogolaada mooyaane adiga ciidan kale lagu duldhigo wax kale waxani ma aha jacayl lagu qabo ee waa destabilization waa inaad ku jirto inaad weliga soo kicin Soomaaliya meelaha yar nabadu ka jiraan waa meelaha laga yaabo inaan iyaga askartoodu imanin iyo inta iyaga la socota aanay ku badnayn kolay kama madhnee ayaa inta nabadu ka jirto qodobka saddexaad ee subversion theory uu tilmaamaa waxa weeyaan waa waxay dhahaan crisis normalization tatbiic al-azma qofku marka dambe balaayada waa inuu arkaa inay nolosha ka mid tahay halkay Soomaalida la gaarsiiyay weeyaan qofka Soomaaliga in wax badan iba jiraan ma arko maalinta qarax yar dhacaw isla wallahi dib baa soo korodhay laakiin wuu la qabsaday wuxuu bartay inuu la noolaan karo dhibta
dabeetana waxay dhahdaan crisis normalization qofka haddii la gaadhsiiyo dhibta inuu la noolaan karo hadduu gaadho waa halkii lala rabay. ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka in badan buu dadkan kaga digay. waxaanaan tilmaamaynaa ma aha wax wadaa tilmaamayo, waa waxay istaraatiijiyaad ilcaalam ku dhigaan. maalan waxaa jira buugu qoray nin jayniisa 2500 sannadood ka hor noolaa, Sanadzio baa la yidhaahdaa, oo filosof generaal la ahaa. buuggiisu waa weedho koobkooban, waxaan filayaa 600 iyo dhowr statement oo koobkooban inuu yahay. culamada istaraatiijiyada dunida daraasayso dhan baa loo dhigaa, militariga dunida oo dhan baa loo dhigaa. waa kalimaad koobkooban oo ninka kani markaa waa nin filosof ah, fanniga istaraatiijigana looga dambeeyo. waxa uu yidhaahdaa ina ikhdaaci alcaduw min duuni qitaalin huwa arfacu imtiyaaz buu yidhahaa. cadowgaa inaad jabiso oo uu ku hoos yimaado adigoo aan la diririni waa heerka ugu sarraysa la gaadho buu yidhi. waalcamalu alcaskariy huwa aqalu turuqi jawdatan liikhdaaci alcaduwi buu yidhaha. militarily inaad cid u jabisaana waa qaabka ugu hooseeya cadow loo jabiya buu leeyahy. yacnii inaad ciidan iyo hub iyo dagaal ku jabisa waa qaabka ugu liitabu, waa farsamada ugu liidata. laakiin farsamada u sarraysa waa maxay? inaad ninka jabiso adigoo aan dagaalamin, adoon askari kaaga dhiman ama waxba kaaga dhiman inaad jabin karto. walidaalika ba wuxuu tilmaamaa ina alacdama bayna alqaada laysa almuntasir fi 100 macraka bal dalika aladi laa yaxtaaju iطlaaqan ila alqitaali liyantasir. halyeyga ama geesiga weyn ee hogaamiya ee laga dambayn karaa ma aha buu yidhi ninka 100 goobood guulaysta, ee waa ninka aan dagaalba u baahan si uu u guulaysto. ninka aan dagaalku u baahanin si uu u guulaysto. waxaan qadiyadan u tilmaamayaa markaa waxay tahay ilaahay wuxuu ina leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llah waltandur nafsun maa qadamat ligad. alictimaad calaa nafsi haddaynu yeelan kari weyno oo cid kale inoo dejiso khudadkeena iyo road mapka iyo meeshaynu marayno, abid guulaysan maysid. waxaad guulaysan kartaayo qura markaad adigu awooddaada iyo aqoontaada iyo tamartaada iyo dalkaaga iyo xoolahaaga iyo dhulkaaga waxa ku jira ama kor saaran markaad adigu ku xisaabtanto ee adigu taas aad balangaraysato waad guulaysan kartaa. amaa cid kale i wanaajinaysa warka gaaladoo dhan haddaan soo dhaafo, ilaahay kitaabka qur-aanka ee soo degay 1400 sannadood wuxuu inagu leeyahy maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wala lmushrikiina an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum wallahu yakhtasu biraxmatihi man yashaa wallahu du lfadli اlcadiim. ma jecla baa rabbi leeyihi kuwa gaalada ah ee ahlu kitaab iyo mushrikiinba isku dar. kuwa gaaladahi ma jecla an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum, xagga alle inaad khayr ka heshaan, ma aha inay iyagu khayrku siiyaan. xagga rabbi in khayr idinka yimaado ma jecla baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. idan mid aan jeclayn inaad xagga rabbi khayr ka hesho ayaa isagu dhankiisa khayr kaa siinaya. haddaad rumaysato waad jabtay. waxaad ka mid tahay kuwii la soo tilmaamayey. iyagu mala waa gabyaagii soomaaliyeed sheegayey baadida nin baa kula daydaya daalna kaa badane oo aan doonayn inaad heshaan daayin abidkaaye dadkuna moodi duul wada dhashoon wax u dahsoonayn. yacnii nin soomaaliyeed oo kale tilmaamayay, laakiin xaqiiqadu wax weeyaan waa kuwa kan. kuwan baa nooca kan u fakeraya. maxaa markaa ina saaran? khudada aynu degayno waa inay bataanaadka reer galbeedka iyo waxa la socdo dhammi ka baxsanaadaan. ilaahay baa wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu bitaanata min duunikum laa ya'luunakum khabaala wadduu maa canidtum qad badat albagdaa'u min afwaahihim wamaa tukhfii suduuruhum akbar qad bayannaa lakum ulaayaati in kuntum tacqiluun. war kuwa iimaanka laga helayo war la taliyayaal aan idinka ahayn ha yeelanina baa ilaahay leeyahy way idinlu goynayaane.
لا يألونكم خبالا وإذن فسهادين ينبر ربكو شيء مركزاتنا وحد هذا خبير عدا كصعوطة هداد إيمان سنة خبراء بضم ليدين لكن دير كعد من كم إذا علماء الصومالية جامعات كرر قلبات كنا رجع شوقي وين كترسان أيه وحيري وحني ما هذه السببة مركزات وحيجا صهر بحيويري نين باييري عبد حق دمنين يغيريان مقلبيري markaan eegayna waa nin cad oo yimo aduninkii way swareysteen ninku muxuu ahaa marka kan United Nations kii qayb dhan buu haystaa laakiin markay xagga joogeen jaamacadda wuxuu ahaa badhay walaha professorada waraaqa u kala qaada markaas ku yiri wasaad xaggan ku heshay intuu deerkaas qabtay buu yiri daaniga awowyaday baa ii shaqeeyay adiga awowyada baan shaqeeynin buu ku yiri waa ruti يعني أبو يدا باشقي يعني ما خبير لإني وحوي ويني من سوين إلهي حين لا يود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وحاد هيستو أدقو هيستين أدهروا مرتمربا وحنا ما تفايدين هذا الدين الآن وحوقع دقالاكو هشو حنا ما تفايدين إلهي حين المام يا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أيها الأحبة علينا خطة إنه بهني لكن وين نقرنا مش إنه دقنا يوحى إنه ربنا إنه قبلنا إن أنا مال بنانا هينا وحي إنه ضنا أنت إنه دجنا إنه سعكرنا وهي هذان أول مراحل التخريب بين هذان مركي نظام كودا استعمالان هل كلا قبل أبا بين هذين بربرين تأمده أول مراحل التخريب هو إفساد الأخلاق بين هذا ودقن دورنتا واخلاق دول اللومية استبقى كوات مركا هاد لربطو قضايات كان صدح دا للربا إني أمد لغو سفايو فاس استبقى لقادا وإن داتك مورال سكودية أخلاق دودية إثيك سكودية فاليو سكودية نورنتو that's why عالم الإسلامي ما أنت ورب بدن لغا أخرين يوآ فيمينيسم جروب إيا جندر إيا kuwa iska waramaya iyo waxaan sheekhu hadda sheegay iyo waxaan loo wado dhame waa ifsaadu akhlaaqi الناس واجرتا بنادمكم ما أقبله بفطرته إلا إذا هذا حما السماء ما أقبله لكن حما شارب اللهوية آدم إبليس كما ورنين جيت كان عنا الدمبابتي ده محوكو يري شجرة الخلد وملك لا يبلى ما كنتوسية قيد مركز عنطوه شجرة الخلدية هذه waxa la waranayaa waa xuquuqda dumarka iyo waa xuquuqda caruurta iyo wax xuquuq la sheegay ma jiro xagaas ay ku dulmayeen xuquuqi meeshan ma taalo ee waxa weeyaan waa fasaadinta dumarka iyo fasaadinta caruurta iyo fasaadinta ummadda ayaa asala laakiin shaarka sare la huwinaya wuxuu yahay maxay erayaanad ka didaynin oo ah xuquuq rights marka laga warramo waxaad si leedahay dee wax macquul ah laba saddex midoo logic ana la sheego لكن من رايت اسبا نبانين وتجا يا هيومن رايتس كمده قف بقى بدل يا هيومن رايتس كمده يعني واحد بدن بقى لينو شيغيا لكن waxa kale inoogu sheegaya idan hadii akhlaaqdu ay lunto wa marahil fasaadku halku ka bilaabmo gaalada maanta joogta gaalka ugu weyn wa Richard Dawkins wa نبي الإلحاد بيجوا يراهدان a prophet of atheism دين لا أنت النبي جدا بيكون شاعرين وياي وأنك اللي قدر يوشن أيا وحولي هي من الصعب جدا الدفاع عن القيمة الأخلاقية المطلقة على أرضية أخرى غير الدين ووح أدق بولي إن أضد فاليو أخلاقيات أخلاق في عيني إن تكون رمي كرتو أدقوا أن كنت أجنين بولي دول دينيت دين الآن يا أخلاقي مرنبا اسم فوليان بولي هذا كان لا إلهي ما شردتك ويريا وبوكي سجدوا لي يشبكوا غريا حلي أخلاق لا هذا ربطوا إن فاليو سون شاكتو وإن كنت أجنت هيبوت المام يا محي religious ground هدارت هاي سنين ما صورتك لها بوت المام يا أيها الأحبة
هل لنا مركا إلهي سبحانه وتعالى وحين إليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لبتشير با إلهي نوسو علي إلهي عبسيدي سينين كد داله اقننا ولتنظر نفس علماء واحد هذا آيات قيبته هوري مركي اللي يسفريي تقوى انت إيمانكم بالله ياري يا أيها الذين آمنوا لكن مركي اللي يسفريي نولا شيء لقرشايو ولتنظر نفس أي كل نفس نفيها اكتبا ليري مركا واحد هذا النداء بالتقوى ولخصوص المؤمنين بيت الماما وهي يقوم بمنتفعين والأمر بالنظر لعموم كل نفس نفيها اكتبا إلهي ما قدمت الغد بري وحظهر مرسطه الغد بريدا دوا نقون كرا بريدا دروك سنة ونقون كرا وحكادم بيودمي وبريتو وحكادم بيودمي وبريتو إن الله خبير بما تعملون إلهي وقنوقي هي وحا سمين إنسان قصدك كليدين هي بواطنتين هي ظواهرتين من ربي وأوقي سبحانه وتعالى وحا هبال مركة الدنيا آخرة أيين هريا له الدنيا آخرة اسم الله اسكو قيمنا معها اسكو الرزقي اسكو مشكلتنا معها taasi waxay u baahan tahay marka wax la qorsheynayo keeba mudnaanta leh yani markaad qorshe degayso nolosha waxaad qaban doontaa priorities ba kala jira waxbaad kala horeysiinaysaa siday u kala weyn u kala muhiimsan yihiin baad u kala horeysiinaysaa qorshaheena waa inuu u weynaadaa qorshaha aakhiro dabeetana qorshaha adduunyo marka leena waa inuu u weynaadaa qorshaha aakhiro qofka muslimka ah ee siyaasiga ah ugu horeyn inuu ka fekeraa ummadan ay aakhiro naar uga baxsan lahayd jannana u gali lahayd waayo that's the most important thing waa waxa ugu muhiimsan ee aad dad u qabatid ثانيا بعد سويدينيسا تاسد لو غاديو ee adduunkan inta la joogana si aan loo kadeedmeyn ee adduunkan nolol fiican loogu noolaan lahaa waxaan leenahay marka aynu qorshe dejinayno waa inuu priorities ku kala horeeyaan waliba waxa hubanti ah haddii qorshaha dambe ee aakhiro uu noqdo ka muhiimada leh ka adduunyana automatically inuu hagaagayo waayo aakhiro laguma gaadho adduunka kharibkiisa aakhiro waxa iyadana lagu tagay ku islaaxda maxay adduunkan islaaxintiisa tanba mazraca u ah marka ugu horeyn waa inaynu aad uga fakarnaa ilaahay wuxuu leeyahay yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdara wama amilat min su'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu والله رؤوف بالعباد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قرشها كواد وينو كجرا wax kasto aad samayso baraad la kulmaysaay muxuu yahay jawaabtaadu wax kasto aad samayso adduunkan aad qabato wax kasto aad qabato amal kasto ka soo fula baraad la kulmaysaa ee maxay tahay jawaabteedu sidaa awgeed ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam dhalinyaro la talinaya nin dhalinyaro ah inagu dhalinyarada markaynu la talinayna maxaynu ku nidhaahnaa dad nin dhalinyaro aragto waxbaro nin noqo xoogso guurso shaqayso soo kama ha taladeenu talada ugu badan ee dadku waa in dhow unbay dadku arkaan maca kuwan ay yidhaahdaan indheer garad indheer ma arkaan in dhow bay arkaan dadku waa wada indhow garad buu badan yahay waxaynu ilmahaaga qorshaha ku yaala muxuu yahay koowaad iskuul dhigo jaamacad ka bax guurso nin noqo taa waxaad ogoshahay inaad ku bixiso maxay waxay u baahantoo dhan baad diyaar ula tahay waxay u baahantoo dhan baad maxay ula tahay ayaad diyaarinaysaa iskuulku gali lahaa kuu noqonayo jaamacaddu ka bixi lahaa kuu noqonayo kharashku u baahnaan lahaa waxaasoo dhan waa diyaarinaysaa
maxaad uga dan leedahay nolosha dhow inuu guulaysto beritaad injineer noqon ama dhakhtar noqon ama saan noqon ama ka noqon marka qorshahaagu wuxuu baday ma diyaarinay dhammaanteen isku keen dar wadaad iyo wabiin ba israakeen raaceen intaa in leeg ma gelinaa aakhiro si uu qofku u guulaysto aakhiro si uu qofku u guulaysto programkaynu degaynaa ma ku jirtaa intaa in leegoo investment ahay bal waxa kaleba ha dambeeyaane maya waxaa kugu adag macallinka qur-aanka dhiga $20 la siiyo war kuwa malaamadooda waa qaali baa taagantay laakiin waad ogashay jaamacadda dhowrka kun inaad bixiso ee dhakhtarnimada ka baranayo waayo tan dhow qorshahay kuugu jirtaa oo aad baad u qorshaynaysa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi ibnu cumar oo nin dhallinyaro ah buu la talinaya garabka intuu ka dhirbahay xadiidkaa taqaaniin ee bukhaari ku yaalla kun fi dunya kaannaka ghariib aw cabiri sabiil waa nin dhallinyaro ah waryaa xoogso lama odhan oo nin noqo oo guurso oo kan sameeyo xoolo dhaqo laakiin waxaa la ogayay hadduu ta dambe fikraddeeda qabo tan hore inay islaaxayso saa daraaddeed buu nebigu wuxuu ku yidhi kun fi dunyaa kaannaka ghariib adduunkan waxaad ku ahaataa sidii qof maxay ghariiba stranger qof aan meesha u dhalanin ama waxaad noqotaa maxay aw cabiri sabiil qof musaafira qofkaas inta uu ka fakaro inuu meeshaa joogo ama qorshuhu u dejiyo qorshe leeg u deji marka xooggaaga iyo xoolahaaga iyo qorshahaaga xoogeen xaggaad u dejinaysaa ta dambaad u dejinaysaa inaad ta dambe horaysiiso ayaa muhiima si awgeed ayuha alaxiba waxay leenahay nolosha khuda kama maaranto laabud min takhtiid lilmustaqbal laakiin takhtiidkeennu sawaa mid siyaasi ha noqdo mid dhaqaale ha noqdo mid bulsheed ha noqdo oo ummaddu leedahay ama adigu naftaadu aad leedahay ama qoyskaagu uu leeyahay wuxuu u baahan yahay inaad qorshayso qorshahaagana priority-ga koowaad inuu noqdo quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaasu walxijaara ilahi wuxuu leeyahy ya ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo quu anfusakum waahliikum naara war naftiina iyo ehelkiinaba naar ka ilaaliya waa layna og yahay inaynu tanso ka jecelnahay kalaa bal tuxibuuna alcaajila watadaruuna alaakhira ilaahay wuxuu leeyahay tan dhow baa jeceshiin aakhirana inta badan waa ka tegaysaan laakiin bahasha cagsiyaa laynoo tilmaamaya ta aad qorshahaaga ugu muhiimsan u degayso qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya dadka aqoonta leh markay telinayeen waxay tilmaamayeen ninkii qaaruuna xoolaha badan soo helay maxaa lagu yidhi wabtaqi fii ma aataaka allaahu addaara alaakhira war wixii ilaahay ku siiyey nolosha aakhiro ku baadigoob ku raadcee walaa tansa nasiibaka min addunya adduunkanna dheeftaada ha ilaamin baa la leeyahy yacni priority-gu ama mudnaanta waxaa le maxay aakhira la leeyahay adduunkaaga ku raadcee waa laga yaabaa inagu xoolaha waxaad u dhaqaysaa aad magac yeelatid guri weyn aad dhisatid xoolaha ma u dhaqataa inaad guri weyn jannada ka hesho mise gurigan aad ku jirtaa cidhiidhi iyo fikradda koowaad waxa weeyaan inaad ka beddesho waxaa laynoo tilmaamayaa aakhiro inay mudnaanta yeelato waaxsin kama axsana allahu ilayk adduunkana ha ilaabin baa la yidhi si alle subxaana wa tacaala uu kuu wanaajiyeyna u wanaag fal aayadda ku xigta ilaahay wuxuu inooga digayaa subxaana wa tacaala kuwo qorshe ka gedisan iyagu maray qorshahaynu sheegayna aynu leenahay priority-ga waa inuu aakhira yeelataa markaad road mapka aad marayso iyo waxa aad qorshaynayso kuwa iyagu taa dabarogay baa ilaahay tilmaamay waa aayadda ku xigta marka aayadda hore amar bay ahayd tanna waa nahyi walaa takunuu kaaladiina nasuu llaha faansaahum anfusahum ulaa'ika hum alfaasiquun ha la mid noqonina baa ilaahay leeyay sidii kuwii alle ilaabay qorshaha uguma jiro ilaahay subxaana wa tacaala iyo cabsidiisa iyo aakhira iyo kani qorshaha uguma jirto ee maxaa qorshahooda ku jira adduunkan siday wax uga noqon lahaayeen baa ku jira
سوجد با إلهي وحين لي ولا تكونوا كالذين نسوا الله كون محاكو دعا فأنساهم أنفسهم تودا إلهي اللوسية بني آدم كمان أنت الدنيا كنا لماتيريال بورسي تكنولوجي ورد هو ماتيريال بكور رمية لكن بني آدم كي ولا ديسكري لا يوصي بابايا تكنولوجي وصي هرو مريا بني آدم كنا محي وصي دي بسعودة دقنهان أخلاقهان عقيدهان ضدني معهان وصي بهلوبة يا بني آدم كدنيا تشوغا بني آدم كدنيا تشوغا dal dhan baa waxa loo baabiinaya in yaroo dhaqaalaha in laga helo dan kale iyadoo aan laga lahayn shidaalkiisa la booba ama waxoogaa macdan oo ku qarsoon la soo qaato idan wuu sii bahaloobaya marka wixii naftooda dani ugu jirta la ilowsiiyey ama ay ka tageen faansahum anfusahum ulaika humul faasiquun kuwa layna yidhi ha la mid noqonina waa kuwee المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويغضون أيديهم نسوا الله فنسيهم كوا مسألة كسي فيسني كوا نفتود إلا با إلهينا تود إلا وسيي إلهي إلا با إلهينا نفتود إلا وسيي ومنافقين با إلهي تلمامية اليهود والنصارى في سورة المائدة آية صدحي تبنادي أفيرا تبنادي اسكحيقا قال أول با إلهي وحولي ونسوا حظا مما ذكروا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا في سورة الأعراف إلهي كتل مامية إذن أيها الأحبة كوي قرشه هذا آخر أبو الريد قرآنكم حكوت المامية قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم كوي جنة قالي وحيلين إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين دوني دا مركانو جوغنا با حسابتنا ugu jirtay الله كعبسيبو مركانو ريراha iyaga dadka iyaga la joognay ayaanu ilaahay ka cabsanayna subhanahu wa ta'ala sida ogeedna famanna Allahu alayna wa waqana adhab as-samum inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim kuwi qorshahaasi ka xumaadayna aakhira ilaahay wuxuu inoogu tilmaamay ee gaalayna odhanayna ya laytani qaddamtu لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي نقول الشيء ده ما هو حوار مرصده أيها الأحبة وحنفلها يا وقتي سلا ديني قاعدي وانقبي قبيني قد الله إذا ضاقيبتك على وقتك لا كورمي ها آيات كان كسو كوبيا كو نولش قرشالا ما صعته سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يدقن كيسيبنا ينبريا دينتنا إنا فريسة إلينا وحينا لي ور مستقبل كينا إيجا مستقبل كاين لإيجا وحي وباهنت بين ليني كو الله كعبسي لبا وحي وباهنت بين ليني إني نكدد لما ينفعنا في الدنيا والآخرة وإننا عاجزين صدح وحي وباهنت هاي إني دنيا والله سلومنا يايه رزقي وتربدا هي إني نقرشك يالنا سينو يسقى أودي لهين أما يسقى تشوشين لهين هدو يهي نفط هذا يهدو يهي قويس كاغا يهدو يهي ومضى هذا رزقي قاعد تاغن ساد سقى أودي لهين أفروح إنو بهنا إنو إغنو مستقبل كدير إنو مدنانت كوات سينو مستقبل كدوية مدنانتي سنة هذين وقتها لا وقت كلينو كورمي صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.